بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دواد أرداجينا. ما أنت وحن كهل دونا شيكدي كارتدي لجو فشل ماي. نين أيا أصوغل نين أضيا أو هديل هيلب كعنايا. مركز أيود دمعينو هيلب كله وداجو. نين كينو أبو وبيرواي. كدب أيو يسيري. نين كجلانجل أو هذا الكوبلاو. كدب ninkii ayaa yiri reerkaagii ayaan soo maray odaygii marinkaaga ayaa ahaa ninkii islaantaadii way umushay odaygii sidkeeda ayaa buuxsamay ninkii oo waliba mataano ayay dhashay odaygii soo waa waxay la uurweynay ninkii mataanihii mid ayaa dhintay odaygii wadkiisa ayaa galay ninkii kii kalena waa uu ka daba dhintay odaygii meel uu ku hadho ayuu waayay ninkii waar hilibkad cunaysaa bariru weyna odaygii oo rumadii u dambeysay cantuugaya ayaa yiri baruurtu adeer waa waxaan ku doortay sheekadu markay halkaa maraysay kadib wuu soo kacay odaygii waanu farxashay ama faramaydhay waxaana uu yimi maqalkii lacagta lagu bixinayay maqal hayihii soo xisaabtan adeer odaygii xisaabi aakhiray jirtaa maqal hayihii maxaad cuntay odaygii dee wixii aad ii keentay maqal hayihii waar maxaad qabtaa odaygii dee xaali oo keliya odaygu waxa uu mooday inuu leeyahay xaas ma leedahay kadib wuxuu yidhi dee xaali oo keliya maqal hayihii waar cuntadaada lacagteedu waa imisa odaygii dee sidaasi dheh markaas ayuu lacagtii bixiyay sheekadan waxaynu ka baranaynaa maadaama oo ay Soomaalidu tahay afku nool ama bulsho oral society ah inaanay badanka hadal ku kala adkaanaynin dhanka kale waxa sheekadan inooga soo baxaya murtida ay inoo tilmaamayso mahmaahdii ahayd hadal badan haan ma buuxsho markasta oo aad hadalka sii badiso waxa ka durkaya oo aad ka gaabinaysaa inaad hiigsigaagii ka dhabayso sidaas awgeed malaha waxay ku habboon tahay in hadalkaagu noqdo mid cad oo kaalingal ah oo waxay ku wanaagsan tahay marka aad qof wax ka doonayso inaad raacdo mahmaahdii ahayd hadal waa kii kooban ee kaalingal ah ninka hadalkan ka jawaabayay waxa uu xariif ku ahaa oo Ilaahay ku manaystay waxa afka Carabiga lagu yiraahdo sur'atul badiiha ama inuu qofku hadalkii lagu yiraahdo ama su'aasha la weydiiyo si dhaqso ah oo ku habboon oo hadalkii ka run sheegaysa u yiraahdo hadalkaasina uu badanka qosol reebo oo lagu maadeysto haddaba isku day marka ay ciidani ka gasho dantaada oo aan meermeer iyo warwareeg lahayn inaad u sheegato hadalkaaguna uu badanka cadaado sidoo kale marka aad qof wax ka doonaysidna u bareed oo ha ka leexleexan rabitaankaaga taasina waa talada guud ee aynu wadaagayno ee ku habboon sheekadan kooban ee xigmadda ku aroorta kana midka ah badweynta sheekooyinka Soomaalida haddaba barnaamijkeennii sheeko gaaban oo ay sheekadani maanta kow ka ahayd badweyn sheekooyin oo aynu soo wadno halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa inta ka horeysa sheekada tan inoo xigta waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh